Assalaamu calaykum. Daawadayaal barnaamijkeena maanta waxaan ugu warbixin doonaa qisada gabar ku dhex foolatay xabsiga iyada oo jirta da'da 16 jirka. Waana qiso runtii aad u murugo badan uguna baraarujinaysa dhibaatooyinka ay leedahay la saaxiibida dadka xunxun. Inta ayna barnaamijkeena guda galin, waxaan ka codsanayaa inaad like saarto fiidiyowga si uu u faafo kuna soo biirto kanaalkeena Daadihiye adigoo taabanaya badhanka cas ee subscribe-ka. Intaa kadib aan guda galno fiidiyowgeena. Qisada waxay ku bilaabanaysaa sidan. Tiina waxay ahayd gabar 16 jir ah, waxay ku noolayd dalka Mareykanka, waxay u noolayd sida caadiga ah, waxayna dhigan jirtay iskuul sida dhigeeda. Waxay la noolayd qoyskeeda oo ka koobnaa 5 ruux. Maalin maalmaha ka mid ah, Tiina waxay isbarteen wiil da'diisu ay ahayd 20 jir. Isbarashadaas oo u horseeday Tiina dhibaatooyin fara badan ilaa heer ay ku dhex foolatay xabsigii lagu xiray. Haddaan idinka ka sheekeeyo Tiina wiilkan ay isbarteen wax ku saabsan noloshiisa. Wiilkan ay Tiina isbarteen waxaa la xiray dhowr jeer, wuxuuna ka ganacsan jiray daroogada. Sidoo kale wuxuu ahaa tuug, laakiin waxaas oo dhan inuu yahay wuu ka qariyay. Habeenada ka mid ah ayuu ku ballamiyay meeshaas oo ay ahayd baarkinka gaariyaasha la dhigto. Kadib xoogaa markii ay sheekaysteen ayuu arkay gaari qaali ah, wuxuuna bilaabay inuu fiiriyo dhinacyadiisa. Kadib markii uu ku waayo qof ayuu jabiyay gaarigii qaaliga ahaa muraayadiisa. Intaas markay arrini marayso ayay gabadhii oo la yaaban waxa meesha ka dhacaya ay u soo dhowaatay iyadoo leh maxaad samaysay. Kadib intay wax dhacayeen ayaa waxa ku yeeray alarmiga, waxaana meeshii soo gaaray boolis si degdeg ah. Wiilkiina meeshii wuu isaga cararay, laakiin gabadhii naxdin iyo anfariir ayaa ku dhacay. Booliskiina gabadhii ayay qabteen, xabsiga ayayna u taxaabeen. Baaritaan dheer kadib gabadhii waxaa lagu xukumay 2 sano oo xabsi ah oo ay sababtu tahay in ay khalqashay oo ay war sugan ku hadli weysay. Booliskiina wuu ka shakiyay gabadha, sidaas ayaana lagu xukumay gabadhan 2 sano oo xabsi ah. Arrin markuu meeshaas marayo, wiilkii dhibka ka dambeeyana uu iska maqan yahay, ayay gabadhii isku aragtay uur. Waxayna ku noqotay arrin naxdin ah. Gabadhii iyadoo xabsiga isaga jirto ayaa maalin waxaa soo booqday wiilkii. Kadib sheeko dheer iyo dood, maadaama ay jeclayd wiilkan, haddana doodaas waxay noqotay mid keentay dhibaato. Wiilkii wuxuu ka yidhi, waan ka xumahay inaad dartii xabsi u gasho. Way ku xanaaqday oo waxay ku tiri, maxaad u jebisay gaariga oo haddana iga carartay? Wuxuu ku yidhi, waa iska caadi, dhib ma lahan, iga raali noqo. Kadib waxay ku tiri, uur baan leeyahay. Wuxuu ku yidhi isna, waan ku faraxsanahay, waana idin daryeeli doonaa adiga iyo cunugayga markaad xabsiga ka soo baxdaan. Waxay ku tiri, maxaad wax daryeeshaa? Yaa adiga shaqo ku siisanayo, maxaadna siinee adaaba gaariyaasha dadka jabsanayo oo tuug ahe. Kadib wuu ku xanaaqay. Kadib buuq baa dhacay, waxayna ku dacweysay booliska. Waxayna u sheegtay in ninkan uu yahay ninkii gaariga jabsaday. Ninkan awalba nin ay fare ka yaalin ayuu ahaa. Waxaa ku cadaaday dembigii, waxaana lagu xukumay 4 sano oo xarig ah. Tiina arrinkaas way ku faraxday. Intaas kadib waxaa la gaaray xilligii foosha. Qoladii xabsiga ayay codsi weydiisatay oo ah inay geeyaan isbitaal. Waxayna ku dhaheen anaga kugu soo warcelinaynaa. Maalmo kadib waxaa qabatay fooshii iyadoo cidna u iman. Kadib waxaa loo soo diray 2 nin oo ah shaqaalaha xabsiga. Way soo qaadeen, waxayna keeneen qol kale oo sariir taalo. Waxayna ku xireen gacmaheedii sariirta. Kadib qaylo iyo cabaad waxaa yimid dhakhtarkii. Waxay ku dhashay nabad, laakiin waxay foolanaysay 6 saac oo kaamil ah. Weliba waxay ahayd fool xanuun badan. Adiga bacda shida watacab oo ay sanad xabsiga ku soo qaateen ayadii wiilkeedii ayaa la soo daayay iyadii wiilkeedii. Waxayna mar walba ka shalaysaa la saaxiibidii wiilkaas, kaasoo u keenay dhibkaas ah in iyadoo 16 jir ah ay uur qaado kadibna ku dhex foolato xabsi dhexdiisa.